munaasabadda 26 Juun oo ah munaasabad qiimo weyn ugu fadhida ummadda Soomaaliyeed ayaana waxa ay ka mid tahay munaasabadaha taariikhiga ee dalkeena Soomaaliya qaaliga ku ah waxaana ay ka mid tahay maalmaha ku xusan xorriyadoonkii ee dalka ay ka jiray sanadkii 1960 iyadoona uu xoogaystay dhaqdhaqaaqyada lagu doonayo xorriyadoonka guud ahaanba ka soconaya geyiga Soomaaliya xuska iyo qabanqaabada lagu dabaaldegayo maalmaha xorriyadda ayaana waxaa sanad waliba marka ay gaarto 26 Juun iyo 27 Juun ilaa iyo 1 Luulyo waxaana looga dabaaldegaa guud ahaanba dalka xuska 26 Juun ayaana waxaa si weyn looga dabaaldegay degmada Bulaburde iyadoona ay ka soo qayb galeen maamulka degmada saraakiisha ciidanka kuwa AMISOM iyo bulshada qaybaheeda kala duwan gabagabadii ayaana waxaa xafladda soo xiray gudoomiyaha degmada Faysal Haajir Aadan isagoona ka sheekeeyay taariikhda 26 Juun caawa farxad la qaybsanayna dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan ummadda walaalaha ee gobolada waqooyi waa maalinkii waa habeenkii ay xorriyadda ka qaateen gumeystihii dalka waa midnimadii dadku u horseeday waxaan leenahay hambalyo 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 waxaan aad ugu faraxsannahay ayaan la qaybsanaynaa mar labaad iyo mar koowaadba ummadda walaalaheena haddaan nahay annaga ummadda ku nool degmada Bulaburde ee gobolka Hiiraan waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarada quruxda badan iyo haweenka ee caawa shucuurtoodii muujiyay iyo midnimada ay jaceylka ay u qabaan dalkooda iyo dadkoodaba waxaan leeyahay aad iyo aad ay u mahadsantihiin